qashinka nin ayaa iska soo tuura halka nin kalena quudkiisa uu ka raadsado. waxaa hooyadii isku soo tuurtay konteenarka qashinka waxaa ka soo qaaday samirkiyo duqaadkuba wasad lagu ducaysto sabtir laga baryana lama wada sinaade ruuxu ee basiyana cid kama sarrayse bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulan wanaagsan saaxiibayaal, kusoo dhawaada barnaamijka. waxaad daawanaysaa janalka Diamond Show. fadlan nagu soo biir oo janalka subscribe saar, leegta, sheertana asxaabtaada gaarsii. mahadsanid. maanta waxaan soo qaadanaynaa ninkii hooyadii qashinka ku tuurtay kadibna taajirka noqday. wuxuu maahmaah ka dhigtay qashinka nin ayaa iska soo tuura halka nin kalena quudkiisa uu ka raadsado. waxa uu dhashay sanadku markuu ahaa 1989. waxa uu ku dhashay deegaan ka tirsan gobolka Florida ee dalka Mareykanka. waxaa hooyadii isku soo tuurtay konteenarka qashinka waxaa ka soo qaaday ninka magacaasi yahay ee Fangaris iyo Beta oo ahayd xaaskiisa. Fangaris wuxuu ahaa nin fundiya oo guryaha dhisa halka Betana ay ahayd beeraley 50 sano jira. ayagoo socda waxay daacadooda ahayd inay markay u yimaadaan konteenarka qashinka ay baartaan oo ay ka raadiyaan waxyaabo ay isticmaali karaan. balse waxa ay ka heleen konteenarka dhexdiisa ayagoo isla socda wiilkan yar oo jiray 2 maalin kaliya adduunka joogay. waa ay soo barbaariyeen, waxbarasho ayay geeyeen. inkastoo sabool ay ayagu ahaayeen, waxa uu jeclaa yaraantiisa cilmiga kombiyuutarka. wuxuu aad u raadin jiray saacadaha iyo raadiyaasha la tuura si uu qashinka ka soo qaata si uu u sameeyo. 8 sano markuu jiray ayuu raadinayay si uu u sameeyo waxyaabahaas la soo tuuray kombiyuutarada iyo saacadaha ee raadiyaha. balse 12 sano markii uu jiray ayaa la ogaaday culumtan inuu leeyahay cilmiga kombiyuutarka. ilmaha iskuulka ee jiilkiisa ah markay arkaan halkii laga soo qaaday ee konteenarka qashinka wada aad ayay ugu camiro jireen, way ku qosli jireen si ay ugu bahdilaan. balse asaga wuxuu aad u jeclaa inuu hamigiisa ka dhabeeyo hadda waa asagoo 12 sano jira. Fangaris iyo Beta oo ah labada qof ee soo qaaday waxay markay soo qaadeen go'aansadeen inay geeyaan goobta ilmaha lagu xanaaneeyo maadaama ay haysan caruur inay caruur ka dhigtaan oo ay ku daryeelaan. waxaa caado u ahayd maalmaha fasaxa ah asaga iyo aabihiisa inay tagaan goobaha qashinka la keeno ayagoo waxyaabo ay isticmaalaan ka raadiya. balse nasiib wanaag waxa uu ka helay kombiyuutar duqoobay oo meel ka soo qaaday. kombiyuutarka ayuu furfuray kadibna dib u habeen ayuu ku sameeyay. xilliga iskuulka ilmaha ay cayaarayaan break time-ka la siiyo asaga wuxuu ku mashquuli jiray kombiyuutarkaasi sidoo ku sameey lahaa oo ku furfuri lahaa. waxaa ogaaday cilmiga ku jira iyo aqoonta inuu ilmahan kala wax dheer yahay. ninkii iskuulkaasi agaasimaha ka ahaa ama gudoomiyaha waxbarashada ahaana gudoomiyihii gobolkaasi markaasi wuu u wacay. wuxuu ku yiri waxaad ii keentaa hooyada iyo aabahaaga. wuxuu u sheegay inuu wiilkan yar uu leeyahay hibo asaga u gaar ah, taasi oo ah inuu jecel yahay sameynta kombiyuutarada. waxa uu u dhiibay 100 kombiyuutar oo ciladaysan. wuxuuna u geeyay qolka. wuxuu u sheegay saacadii kasta inuu sii doono $12 haddii uu sameeyo. halkaasi wuxa uu ka helay lacag fiican, wuxuuna aad u farxad geliyay aabihiisa iyo hooyadiisa. dadka dhan waxay u keensan jireen kombiyuutarada halaabay. lacagtii ugu horeysay ee gacantiisa soo gashay $70,000 Mareykanka ayay ahayd. kadib wuxuu noqday nin milyardheer ah. sheegay inuu raadin jiray lacag balse uu ka sii jeclaa fursadda si uu wax u soo sameeyo waxna uu ku soo saaro. waxa uu yeeshay shirkad asaga u gaar ah.
deegaankaasi oo u dhashay oo uu ku noolaa ma lahayn wax internet ah. Wuxuu hirgeliyay inuu sameeyo internet. asagoo jira 24 sano ayuu dowladda Mareykanka u geeyay inuu deegaankaasi ka hirgeliyo internetka 2G iyo 3G. balse uma aysan saxiixin maadaama ahaa nin aad u daayar. kambaniyo kale ayuu qaatay. aabihii waa ninkii god qashinka ka soo qaaday ee soo korsado soo daryeelay. wuxuu aad u jeclaa oo ku riyoon jiray gaariga konteenarka ah ee qashinka lagu qaado iyo doonta lagu kulumaysto. balse nasiib darro aabihii waa uu dhintay. asagana waxa uu noqday milyaneer. uu sheegay inuu aabihiis wareystay oo uu weydiiyay sida uu u helay maadaama uu sadhalin oo ilmaha iskuulka bay dhihi jireen ninka konteenarka laga soo helay ama god qashinka lagu tuuray. wuxuu yiri habeen aniga iyo xaaskayga oo isla socona ayaan konteenarka waxaan ka raadinaynaa waxyaabo aan isticmaalno oo dadka kale ay ku soo tuureen. balse adiga ayaan ka helnay kartoon yar ayaana ku jirtay. wuxuu sheegay inuu aabihiis iyo hooyadii aad u jeclaa balse aabihii uu dhintay. hadda waxa uu jooga gabar iyo xaas. wuxuuna haystaa dhaqaale gaaraya 2 milyan oo dollar. waa ku mahadsantiin daawashadiina iyo la socodkeena. fadlan nagu soo beer mahadsanid.